Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Mowduuca muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugula wadaago shaxdeena VAB-da ee ciyaaraha la ciyaari doono maalinta Beritoole, kuwa oo dabcan boqolkiiba 99 aan ku saleyn doono possibility winning-keenna. Dabcan waxaa jiro ciyaaro duhuradii ilaa iyo galbihii la ciyaaro, kuwa oo shalay tola soo dhigay 4 kooxood ay ahaayeen. 4ta kooxoodna dabcan qaabka u saadaalinay u dhaceen. Oodkooda marka la isku darana 4.9 ilaa 5 uu gaarayay. Waana soo dhigay dabcan dhalinyarada ka faa'iideystay. Marka haddii aan ka bilaabo gameka koowaad kan uu ahaa, oo waxaa dhahnay Western United ay badin kartaa, waa ay badisay. Newcastle Jets oo dhanka dumarka ahna waxaa dhahnay badis ama Bridge heli kartaa. Dabcan Bridge heshay. Halkaas marka 2.191 uu ahaa ama 2.191 uu ahaa. $600 dhigtay $424 halkaa ka helay. Gamekeena labaad waxa ah game mucjiso ah. Gamekan waxaa dhahnay kooxda awayga ah ee dabcan Brisbane Road oo qaybta dumarka ama womenka waa ay badin karaan ama Bridge heli karaan. Dabcan waxa ay ku badiyeen 8 gool 1.38 oodana saarnaa. Kooxdeena labaad waxay aad Bungaraya 3-0 waxay ugu badisay Beep kooxda ay u qoran tahay oo waliba Cambiida koowaad. Soo markii shaxayaasha soo dhigay shalay toolo subaxii shaxayaashaas ay ahaayeen. Hadda maanta marka kooxo fara badan ay jiro, gamekeena koowaad haddii aan soo qaadano wuxuu noqon doonaa Ipswich Town iyo Chelsea. Gamekan waxaa ku saadaalinay in Chelsea ay ka badin karto Ipswich Town oo waliba si nadiif ah ay ugu badin karto. oo waxaa saaran dabcan ood macquul ah 1.42 ama 1.42 senti camal meelahaas saaran, waana iska ood macquul ah maadaama Chelsea ay u shii markii la isku fiiriyo. Gamekeena labaad waa Arsenal iyo Brentford, iyadana waa 1.48 oo ku dhawaad ah 1.5 $300 haddii aad saarato $446 heli doontaa. Waana ood macquul ah oo dabcan possibility winning-kiisa aad u sareeyo. Gamekeena saddexaad dabcan wuxuu noqon doonaa Tottenham iyo Newcastle. Dabcan iyaga ma ciyaari doonaan habeen dambe oo dabcan muhiim inooma aha, shaxdeena kuma jiraan. Soo markaa ku gudbeynaa kooxaha habeen dambe ciyaaraya rabnaa. Real Madrid oo kale hadeertan kulankan 4 bishii ciyaareysaa, ay badin kartaa dabcan dhahnay shax ahaan waa u qaadan kartaa laakiin ma dhawo. Soo markii shaxdeena VAB saxda waxay hadeertan haysanaa Chelsea oo Ipswich Town ka badin kartaa iyo dabcan Arsenal oo Brentford ka badin kartaa. Tusaale marka haddii sidaan dhahno Chelsea waa ay badin kartaa halka Arsenalna ay ka badin karto Brentford. Isku dar oodkooda marka meeqa noqonayaa 2.1 meeqa aan hadeertan soo qaatay $295 $625 qaadanaa. waa ood fiican waliba lacag meel soo galay maadaama Chelsea ku sameeyay sel. Soo marka haddii aad dawashada ku original ka xashaash mad kaaga codsanayaa inaad subscribe saarto muuqaalkan, aad like saarto, saaxiibada la wadaagto, waana ku mahadsantahay dawashada muuqaalkan.